Assalaamu calaykum. Waan idin salaamaa akhyaarta sharafta leh xilli kastoo ay idin tahay waxaanu wanaagsan. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Taxanaheeni caafimaadka ahi ku soo dhawaada. Taxanaheeni waxa aynu ku soo qaadan doonaa sababaha keena in aad marar badan hurdada ka soo toostid habeenkii iyo xalka ugu wanaagsan. Dadka badankoodu waxa ay hurdada ka soo toosaan 1 ama 2 jeer habeenkii. Marka aad dhowr jeer soo toostid habeenkii isla markaana ay kugu adag tahay durbadiiba inaad ku laabato hurdada, waxa ay keeni kartaa inaad weydo hurdo tayo leh oo ku siisa firfircooni iyo awood. Sababaha keena arrintani waxaa ka mid ah cabista kafeega galabtii, cillado hurdo iyo sababo kale oo caafimaad. Hurdadu waxaa loogu talagalay in lagu nasto si aad ugu soo toostid adigoo firfircoon, jirkana uusan u daalnayn. Sida caadiga ah waxaa caafimaad ahaan fiican in uu qofka weyno habeen walba seexdo 7 ilaa 8 saacadood. Hurdadu ma ahan shay sahlan oo la dhayalsan karo sababtoo ah hurdadu waxay aasaasi u tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda. Muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa sababaha keena in uu qofka ka soo tooso marar badan habeenkii. Waxaana ka mid ah hurdo la'aanta. Hurdo la'aanta waa xaalad caafimaad oo aan caadi ahayn, taas oo lagu garto inay qofka ku adkaato in uu hurdo ama uusan hurdada ka dhergin. Dadka qaba xaaladahani waxaa lagu gartaa calaamado ay ka mid yihiin: 1. In ay adag tahay in uu qofku hurdo. 2. In uu soo tooso marar badan habeenkii ama in ay adag tahay in uu ku laabto hurdada. Neef ku dhegga hurdada. Neef ku dhegga hurdada ama waxa loo yaqaano sleep apnea waa cillad ku badan bulshada. Qofka marka uu hurdo ayaa waxaa ku dhiban neefsashada, aad ayuu u quuriyaa, hawo fiicanna jirkiisa ma helayo, taasoo qofka soo toosisa habeenadii marar badan. Haddii ay jirto cillad la xiriirta hawo mareenka ama dhuunta oo daboolanta ama xannibanta xilliga hurdada, taasoo loo yaqaano obstructive sleep apnea, waa cudur ku badan dadka burburan ama sigaarka caba ama quuriya. Laabjeexu waxa uu keeni karaa in aad hurdada ka soo toostid habeenkii marar badan, gaar ahaan haddii aad cuntid casho culus. Si aad laabjeexa iskaga ilaaliso, isku day in aad joojisid cuntada oo biyo lagula cabo. Cab biyaha 30 daqiiqo ka hor inta aadan cuntayn ama marka aad cuntaysid kadib. Iska ilaali dheregta zaa'idka ah sababtoo ah dheregta zaa'idka ah waxay culays saaraysaa dheefshiidkaaga waxaana badanaya xaddiga aashitada ay calooshu ku gubeyso cuntada. Kana fogow waxyaabaha kiciya laabjeexa sida basbaaska badan, digirta, kafeega, shaaha cagaaran. Walwalka badan. Walwalku waxa uu keenaa in ay hurdadu fiican seexan weydo. Walwalku waxa uu keenaa in aad hurdo fiican seexan weydo habeenkii. Haddii uu ku hayo walwal, isku day in aad jimicsi sameyso habeenkii, galabtii ama fiidka hore. Daawada ugu fiican ee hurdo la'aantu waa qofka inuu jir ahaan u daalo. Waxaa habboon in la hagaajiyo qolka hurdada si ay hurdadu u noqoto mid raaxo badan oo wax ku ool ah. Heerkulka. Qol aad u kulul ama aad u qabow oo aad seexato waxa ay ka hor istaagaysaa in aad hesho hurdo tayo leh habeenkii. Qofka kula hurda. Haddii qofka kula hurda uu quuri badan yahay ama uu u badan yahay in uu soo kaco oo uu nalku daaro, waxa ay saameyn ku yeelan kartaa hurdadaada. Sidoo kale waxaa ka mid ah cabista biyo badan hurdada ka hor. Kaadi badan ee habeenkii waa sababta ugu weyn ee lala soo tooso. Haddii aad biyo cabayso habeenkii, cab fiidka hore. Isticmaalka moobilka hurdada ka hor. Iftiinka buluugga ah ee moobilka waxa uu sababaa inuu qalqal geliyo nidaamka hurdada. Iftiinkaasi waxa uu ka hor istaagayaa jirka inuu soo daayo hormoonka ku shaqada leh hurdada ee loo yaqaano melatonin.